median of the group data dhexfurka daatada habaysan formula qaacida ahaan waxaa lagu helaa median of group data waxaa lagu helaa m is equal l plus bil fur h lagu dhiftay bil kala fur in loo qaybiyo 2 laga jaray cf bil xir loo qaybiyo f guud ahaan bisha u dambaysan xir qaacidadaas lagu helaa weer halka xarfaha maxayna fasirayna marka m waa median ay taagan tahay dhexfur waaye l na waa lower limit of the class ay taagan tahay lower limit of the class ay taagan tahay h na waxay taagan tahay width of the class inta uu kala weyn yahay taagan tahay width ay taagan tahay n waa total number of the frequency inta frequency amba rakaad oo haysatid ugu la isku dardara in loo qaataa cumulative frequency na waxa waaye of the class preceding the class frequency medium class waxa waaye medium class ka frequency uu leeyahay inta ka sareysa waxa loo yaqaanaa cumulative frequency loo yaqaanaa f na waa frequency of the medium class frequency han inta ka sareysa cumulative frequency of the class na waa f loo qaataa waaya example ka 4.1 muxuu leeyahay marka find median waxaa soo helaysaa dhexfurka of the following data xogtan soo socota dhexfurka la soo raadi class mark xogtu waa tan ama waa 30 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80 90 toban kala weynta frequency number of student waaye marka waa kana xogtan hooso ayaa frequency soo noqoshada waaye inta mar soo laabto waaye يعني 20 إلى 30 intuu dhaxaysa 5 arday ayaa ku jirta hadii la yiraahdo hadaan dhibcaha ta ku qiimeeyno imtixaan hadii la galay 20 bund ilaa 30 bund intuu dhaxaysa 5 arday ayaa haysta oo la dhigi karaa sidoo kale 30 ilaa 40 dhibcood intuu dhaxaysa 15 haysata 40 ilaa 50 ardayda 40 ka badan 50 ka yar waxa way laatay 50 ilaa 60 waa 20 60 ilaa 70 waxa u dhaxaysa 7 arday u dhaxaysa dhibcaha 70 ilaa 80 intuu dhaxaysa 8 arday keentay 80 ilaa 90 intuu dhaxaysa 10 arday keentay sidoo ku qiimeyn karnaa marka frequency waa inta shayga inta mar soo laabto solution de we prepared waxaan diyaarinaynaa cumulative frequency table ayaan diyaarinaynaa sida hoos ka muuqata cumulative frequency inaan sameeyno hadda waa class mark iyo student iyo number of student bis haysana cumulative frequency ku soo dareynaa marka waa kana class waa ka dhinaca bidix yaala marka 20 30 30 40 40 50 60 60 90 frequency waa kana f loo qaato waa 5 15 25 20 7 8 10 waa isku dardar korna 90 soo baxayso frequency ma isku dardar cumulative frequency loo shaqeeyaa marka 5 taas soo qaadanay xagga dhiganay sidee u dhiganay 5 tii dhigata soo qaaday 15 ku diri 20 soo qaado 25 ku dar 40 40 soo qaado 20 ku dar 65 soo qaado 7 ku dar 72 soo qaado 8 ku dar 8 soo qaado 7 ku dar 90 cumulative frequency waa qodka u dambeeyo waxa soo baxa total frequency soo baxa sidaas baa lagu yaqaanaa waaya table yar hoos u qorana n node hadda waxa la yiri n laba loo qaybsho waa 45 n waa 90 mugta hadii laba loo qaybsho 45 waay waxa qaacido wax ku reebay go'aan uga rabnaa ma qaybinayno go'aan uga rabnaa hay cumulative frequency cf loo yaqaano just greater than a ka weyn 45 cumulative frequency ka weyn waa 65 corresponding class ku habboon yahay waa 50 ilaa 60 corresponding class ku aadan yahay waa 50 ilaa 60 waaye meeshaas ugu aadan yahay 50 ilaa 60 halkaas muga table kaas oo 50 ilaa 60 ku toosan ayaan frequencies iyo cumulative frequency waxa loo maasan qaad doona haye median class keen ugu 50 ilaa 60 waaye ela ugu horeysa marka el inta ka soo qaadanaynaa el inta ka soo qaadanaynaa أول ريان قبل قادنا
given ka waa L waxay la faataa konton inta la keena marka konton waxay ka timid meesha konton ilaa 60 la qaatay konton ilaa 60 kontonka ugu horeysa ayaa la qaatay kontonka ugu horeysa ayaa la qaatay xajna waa 60 konton ilaa 60 toban kala weyn waay F-na waa 20 waa frequency-ha cumulative frequency ku habboon cumulative frequency maas waa konton laga qaatay xaj 10 keer waa kana meeqay kala weyn labadan waay konton ilaa 60 meeqa u dhacaysa 10 u dhacaysa waay haye 10 u dhacaysa waay F-na 20 waxay ka timid cumulative frequency meesha glass interval midka ku habboon ku toosan waa 20 waay cumulative frequency waxa waay midka cumulative frequency ka sareeya qaadanaysa midka cumulative frequency ka sareeya ayaa qaadanaysa cumulative frequency ka sareeya qaadanaysa n waa 90 n maxay la faatay 90 ay la faataan way qaacida soo qaado marka qaacida maxay ahayd m waxay la faatay l plus h bracket n loo qaybsho 2 minus scf loo qaybiyo f n waa 90 hadaa laba loo qaybsho 45 ay noqonaysaa n waa 90 hadii laba loo qaybsho 45 gano n oo laba loo qaybshay 45 waay cumulative frequency just greater than 45 nidaan soo garan 65 inuu yahay corresponding glass ku aadan waa 50 ilaa 60 medium glass kan waxa la soo faahfaahina data inuu yahay 50 ilaa 60 given kan waa soo qoranay oo L 50 H 10 F 20 CF 45 N of 45 waa soo qoranay given kaas ku bedelo marka qaacida soo qaada marka qaacidan ku bedelo meel kasta L waxaan ku bedelinaynaa 50 plus ay H maxaan ku bedelaynaa 10 lagu dhiftay n loo qabto 45 ay CF na waa 45 laga jarana leena loo qaybiyay F na waa 20 ku bedelo konton plus bil fur 10 45 kala gooy waa 10 waa 0 for 0 ka soo baxayso 0 loo qaybiyo 20 lagu dhifto 10 ay noqonaysaa bracketkaas way intaas oo dhan haduu 0 kama doonto arki doonteen 0 inta hor qaybta hore dhan ka soo bixi doonto konton plus 10 lagu dhiftay 0 sababtoo 0 loo qaybsho 20 waa 0 loo qaybsho 20 waa 0 marka 0 ayna qayb 50 lagu daray 0 50 ayaa soo baxaysa therefore the medium mark qiimaha dhex furka ah waa 50 qiimaha dhex furta oo leeyahay mediumka oo yeelanayo sample kaas 50 waaye halka ayaan ku sinaynaa